عشركان وعشركان نو سعودي وها learn how to use window PowerShell IC عشركان وحان قدا وجرنا وعشركي لباتن إيو سيديدات حان قدا هاد وجرنا عشركي لباتن سيديدات window PowerShell IC أو عشركان وحوكسا بسيهاي توبيقان how to set a variable IP address on the PowerShell command. Variable character ama variable command waan ka soo hadalnay casharadayna horaan ka soo hadalnay caawa uu ka duwan yahay caawa waxa weeyaan sida variable IP address loo create gareyn lahaa weeyaan saa halkaas ku qoran haddaba marka ugu horeysa waxaan sameynayaa let's go jump into command window PowerShell command-ka ayaan ku boodayna halka arkaysid ayaan ku taab gareynayaa CLS say clear igu noqoto saa arkaysan halkaas command-ka marka waxaan ku garaacayaa wax la yiraahdo variable IP address marka variable IP address-ka aan rabo inaan hadda aan idin tuso ama cashirka caawa ka saabsan yahay halkaas ayaan variable calaamadeeda isticmaalayaa server aan leeyahay waxaan leeyahay IP aan leeyahay equal ayaan dhahayaa kabacdi comma ayaan leeyahay markaas ayaan garaacayaa IP address-ka aan rabo inaan create gareeyo waxaan ku tusinayaa saddex tusaale ama laba tusaale IP address variable IP address sida loo sameeyo halkaas ayaan leeyahay 10.10.10.10 kabacdi comma dhahayaa waxaan leeyahay waxa la yiraahdo enter ama term wax la dhaho halkaas ayaa haddana waxaan ku garaacayaa server IP ayaan ku garaacayaa server IP kabacdi enter ayaan dhahayaa haddaba saa u aragtaan halkana saa u aragtaan numberka aan halkan ku garaacay this is a variable IP address cusub aan sameeyey weeyaan waa inuu halkaas kaaga soo baxaa marka mar labaad halkaas ayaan leeyahay saa u aragtaan waxaan leeyahay variable ayaan garaacayaa server ayaan leeyahay server IP aan dhahayaa slash waxaan leeyahay comma markaan dhaho waxaan leeyahay 11.11.11 aan leeyahay halkaas ayaa comma garaacayaa enter ayaan leeyahay haddana waxaan leeyahay server aan leeyahay IP ayaan dhahayaa enter ayaan dhahayaa haddaba u aragtaa numberka IP address-ka aan ka soo hadalay kii ugu horeeyey wuxuu ahaa 10.10. kana waxa weeye 11.11 halkan kale variable any number of variable IP address aragtid ayaa ka dhigan kartaa waa status IP wax la yiraahdaan sameynayaa variable aan leeyahay server aan dhahayaa markaan dhaho IP address aan leeyahay marka hore waan ka tegi halka noqdo equal ayaan leeyahay comma ayaan dhahayaa waxaan leeyahay 101.101.101 aan leeyahay 103 ayaan dhihi karaa qaybta ugu dambeyso markaan dhaho halka noqdo mistake aan sameeyey 103 ayaan dhihi karaa ayaan leeyahay comma ayaan dhahayaa enter ayaan leeyahay server aan leeyahay server IP ayaan dhahayaa kabacdi enter ayaan taabanayaa status IP address waxa loo yaqaano oo default ama variable server IP address saasaa loo sameeyaa haddaba waa aragtaan saddex tusaalaha oo variable server IP address ayaan sameeyey marka ugu horeyso haddii aad galaaskan ku cusub tahay ama arday cusub tahay like-ka taabo comment ka bixi subscribe-ka noo saar comment-kaada waa noo muhiim galaaskeena kale waxaan ka hadlaynaa in aan ka dhigi karno variable IP address only for reading